gabar sharaf leh haddaa aragtid hooyadeedaa sharaf laheed gabar akhlaaq xun haddaa aragtidna hooyadeeda akhlaaq la-aan aheed maxaa la yidhi gabadha habarteeda haruurka tunta ayadna haadinteed taqaanaa habar bela haddaa aragtidna gabar belay ahaan jirta acoodu bilaa mina shaydaan rajim waa dadaa xayo iyo xishood lahayn waa dad caanka qalad ka fahme wallaahi oo bilaa oo talaayo naagayo isku xishooda nimanka inay idin duubaan waxaa ku kallifaya waxay tahay idinkaa ba akhlaaq lahayn oo xaasid isku ah wallaahi haddaa u fiirsato waxaa isku dhegan oo isbahdilaayo oo sumcaddooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda wax macno daraa ku baabi'inaya waa naagaha hadda heer waxayba gaareenba qofka madaxiisa intii la jaro in lagu soo rakibo maxaa lihi jiray geedki maxaa lihi jiray geedki masawirka oo fertificationka lagu soo sameeyay keeneen walaal isku xishooda dad waaweynaa tihiin xoolayo xagee ku xareysnaan jirteen idin aniga markaa video soo duubay taxadar badan aan muujiyaa because waxaan ku xisaabtamaa bari inuu wiilkayga guur u baahanayo gabadheedana inay guur u baahan tahay ma rabi aniga ilmahayga bari video xun aan duubo oo aan attention iyo follow ku raadiyo inay gabadheedii wiilkayga ee mustaqbal daro u keenta ma rabo cunug aan dhalay inuu aniga dartee u ooyo ma rabo because ilmaha aniga agteeda qaaliya ka yihiin nolol adag iyo nolol jilicsan iyo nolol dhib badan iyo nolol raaxaa baan kusoo koriyey laakiin maanta alxamdulilah shukri waxaan soo duubayo waa wax sharaf iyo wanaag leh bari waxaan ka shalaynaya ma lahan bari wiilkayga lama dhaayo hooyadayaa qawneed oo alkulista aniga darteeda uma noqonayo cunugaa aniga dhalay ilaahay baan ka magan galay cunugaa aniga dhalay intaa cil badi lahaa anoo go-eyga wato oo foolxumadeyda ah aan ku qanacsanayo quruxdana maaha inaa is soo qaawisid waa inaa sharaf iyo karaamo aad aniga wiilkayga waa kaasaa maasha allah ujeedaa naag ninkaas u jooga ahay haliga cabsado qoorka ah aniga iga dheer ujeedaa my baby soo ma isqaawin karaa marka ilaaha isuubsaday adi hooyo haddaa tahay inaa challenge gashid waa lagaaga fiican yahay maxaa yeelay naf dhan ah ilaahay kugu aamine intaasoo ubad aa ku fiirsanayo aa muraayad u tahay bari cunugaaga intuu dhiilaa hooyaday adduunka intay ku noolaan lahayd inay dhimataa ii dhaanto ama cunugaaga intuu daroogo isticmaalo oo ismootin lahaa waxaa adiga u samaysay waxaan kaala talinayaa hooyo haddaa tahay inaa bliis sharaftaada ilaalisid adoo u ilaalinayo ilmahaaga ha ilaalin adigad madaxaaga ha u ilaalsanin haddaa adi isnacda xataa bilaa caley ka fakar ilmaha aa dhashay ilmo ficiisa oo iskuul la aadaa ama banooni la dheelaa ama magaalada u raacaya marka cunugaaga beri markii lagu bahdili lahaa sababtaada waxaa kuu dhaanta adoo foolxun oo urduf eh inaa iska soo gashid haddaa wax duubaysid yaa foolxumadaada laguma caynayo laakiin qaawnaashahaaga waa lagu caynaya ninku fura dartiisa ha u bahdilin ilmahaaga haddaa hooyo tahay please and please inta tabartaada is astur